waa kuma wiilkii yaraa ee la dagaalamay sirdoonka Mareykanka ee fishiliyay sira waaweyn oo dunida maalmo gilgilay. waxaa lagu magacaabaa Edward Snowden, ma dhamayn jaamacad rasmi ah, laakiin wuxuu ahaa wiil si gaar ah u jecel kumbiyuutarada. isagoo yar wuxuu bartay sida nidaamyada loo jibiyo, loo dhiso, loona ilaaliyo. tayadiisa darteed wuxuu helay shaqooyin la xiriira sirdoonka Mareykanka. ugu dambeyn wuxuu u shaqaynayay hay'adda NISA, laakiin halkaas ayuu ku arkay arrin uu marna malaysanaynin. wuxuu ogaaday in telefoonada la dhageysanayo, internetka la kormeerayo, dadka caadiga ah xogtooda la ururinayo. ugu dambeyn wuxuu qaatay go'aan inuu shaaciyo, waana go'aankii gilgilay dunida 2013. Snowden wuxuu go'aansaday inuu dukumeentiyo sir ah la wadaago saxafiyiin. markii warbixintii la daabacay, adduunka wuu gilgishay, laakiin dowladda Mareykanka waxay ku eedeysay khiyaanole. Snowden wuxuu ka baxsaday Mareykanka, wuxuu tagay Hong Kong, kadibna Ruushka ayuu magangelyo ka helay. ilaa maanta kuma soo laaban dalkiisii hooyo. wiil ka soo jeedo qoys jecel dalkooda wuxuu noqday qof muran dhaliyay. qaar waxay u arkeen geesi, qaarna waxay u arkeen khiyaanolo. adiga sidee baad u aragtaa, geesi mise khiyaanole? haddaba ma doonayo inaan ku dheeraado qisada, halka ayaan ku soo koobaya. haddii aad tahay qof daneeya qisooyinka iyo dhacdooyinka dunida ka dhacay, fadlan YouTube-keena subscribe saar. waxaynu idiin soo gudbi doonaa si maalinle ah.